mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda batroolka waxa ay sheegeen in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabkii loo soo saari lahaa shidaalkaasi. warbaahinta Xuuraansi waxay dabagal ku sameysay arrimahan iyadoona saraakiil ka tirsan dhanka iyo dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay cadeeyeen in xilliga la joogo la soo saari doono shidaalka dabiiciga iyo kheyraadka kale ee ku jira badda iyo bariga Soomaaliya. hiigsiga 2030 ee Soomaaliya ayaa markan waxa u muuqda mid bidhaamaya marka la eego tusaalooyinka muuqda ee la heli karo iyo raadadka la raacraaci karo. waxaa socda dadaalo kale oo la xiriira qaabka loo gaari karo ujeedada hiigsigaasi loo dhaqangeli karo. mas-uul saro ka tirsan dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu warbaahinta Xuuraansi u sheegay in Soomaaliya xilligan la joogo dhisma xoogan uu ka socdo, sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeynayso qaabkii loo budhigi lahaa arrimaha ku aadan ka faa'iideysiga nacfiga guud ee Soomaaliya sida sargaalkaas uu hadalka u dhigay. ilo wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta Xuuraansi waxay u sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya ay sidoo kale wado dhaqdhaqaaqyo kale oo la xiriira qaabka ama ujeedka ugu weyn ee loo gaari karo hadafkaasi ee ah in la soo saaro kheyraadka dabiiciga ee ku jira badda iyo bariga Soomaaliya. ilo wareedyadan ayaa dhanka kale waxa ay tilmaameen in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo kale oo la xiriira dhanka iyo dowladda Soomaaliya sida ay u gaari lahayd heshiisyo kala duwan oo cusub oo ay la geliso dhanka Turkiga. Ankara ayaa ku guuleysatay sanadkii tagay in ay sahan ku sameyso shidaalka Soomaaliya. markii la baaray waxaa laga helay balaayiin barmiil oo shidaal ah oo inta badan labada ceel ee natiijadooda rasmiga la helay faa'iido weyn u keentay dhanka Soomaaliya. dhamaadka sanadkan ayaa la filayaa in loo dhaqaaqo arrinta ku aadan in la soo saaro, waxaana wararka soo baxaya ay tilmaamayaan in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo kale oo la xiriira qaabkii loo furi lahaa heshiisyada ku aadan in la dhaqaajiyo dhaqdhaqaaqa guud ee lagu gaari karo gunta hoose wadahadalka iyo wadaxaajoodka u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. mas-uuliyiin saro ka tirsan Ankara ayaa waxay kol hore tilmaameen in xilligan la joogo ay socdaan abaabul iyo isku dayo kala duwan oo lagu gaari karo ujeedada, taas oo ka dhigan in mas-uuliyiinta iyo xubnaha dhanka Turkiga ay wadaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ku saabsan qaabkii looga gaari lahaa go'aanka rasmiga arrimahaasi la xiriira. sargaal saro ka tirsan dowladda Turkiga ayaa waxa uu tilmaamay in maraakiibta shidaalka qoda ee Soomaaliya soo gaaray in markan ay bilaabaan in ay qodista ku dhaqaaqaan, laakiin waxay ku dulwadi doonaan sahmin kale oo maraakiib kale oo Turkidu ay leeyihiin. waa maraakiibtii kolkii hore sahmisay dhanka iyo ceelashan shidaalka laga helo ee Soomaaliya, taasoo ka dhigaysa in mas-uuliyiinta Ankara ay ka shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa gunta hoose ee ujeedka guud ee ku aadan in dowladda Turkiga ay noqoto dowladdii ugu horeysay ee Soomaaliya shidaalkeeda soo saarta. dalal badan Ingiriiska iyo wadamo kale oo Yurub ah sida Norway ayaa hore ugu fashilmay inay soo saaraan shidaalka Soomaaliya sabab la xiriira in shirkadaha ka socday dalalkaasi ay isku dayeen in ay musuq ku sameeyaan xeebaha Soomaaliya iyo xilligaas oo kooxaha burcadbadeedu ay aad u xoog badnaayeen. laakiin markan isbeddelka guud ee dhanka amniga la xiriira ee dhacay ayaa sababay in dhaqdhaqaaqyada guud ee ku saabsan arrimahan yihiin kuwo muujinaya xaddi ahaan dhanka guud ee ku aadan in la sameeyo isku dayadaasi, taas oo ka dhigaysa in mas-uuliyiinta Turkigu ay markan bilaabeen in ay sameeyaan isbahaysi xoogan oo ay ku gaari karaan dhanka iyo faa'iidooyinka ka soo bixi kara kheyraadka dabiiciga ee ku jira Soomaaliya. ilo wareedyadan ayaa dhanka kale waxay tilmaameen in ay wadaan isku dayo kala duwan oo arrimahaasi la xiriira, taas oo ay ku gaarayaan gunta hoose ujeedka, waxaana mas-uuliyiinta dowladda Turkigu ay sheegeen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud. warbaahinta Xuuraansi ayaa dhanka kale waxay isha soo marisay warbixinada ay qorayaan hay'adaha inta badan ka faalooda arrimaha kheyraadka dabiiciga, iyagoona sheegaya in Soomaaliya arrintan ay ugu dhigan tahay fursad weyn oo ay gaartay marka la eego sida ay xilligan dowladda Soomaaliya ugu shaqeynayso qaabkii loo soo saari lahaa shidaalka guud ee Soomaaliya.
turkiga ayaa labada dhinac waxa uu isku dhex wadaa abaabul guud oo ku aadan in la soo saaro kheyraadka iyo shidaalka dabiiciga ee Soomaaliya sidoo kale wuxuu wadaa dhismaha ciidamo awood badan oo ay Soomaaliya leedahay taasoo ka dhigaysa in la gaaro gunta hoose ujeedka Ankara ay ka leedahay dhanka Muqdisho taasoo ka dhigaysa waa Turkiga in wadankan uu sii kordhinayo cilaaqaadka kala dhaxeeya dhanka Soomaaliya oo haddii lagu guuleystana ujeedka ugu weyn la gaari karo uu noqon karo in la soo saaro kheyraadka dabiiciga ee dhex eegaaga dhanka Soomaaliya ila wareedyo kala duwan ayaa waxay dhanka kale warbaahinta Turkiga ku hadasha afkooda u sheegeen in ay socdaan isku dayo kale oo arrimaha la xiriira iyadoona dowladda Turkiga ay tilmaamtay inay ka go'an tahay soo saarka shidaalka Soomaaliya si nacfiga ku jira banaanka loo soo dhigo isla markaana Soomaalidu ay ka faa'iideystaan qaabka guud ee loo gaari karo ujeedada ama hadafka ah in la soo saaro shidaalka iyo macaadinta kale ee Soomaaliya ku dhex jira taasoo ka dhigaysa in xukuumadda Ankara ay wado dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo mid amni oo la xiriira in la sameeyo dhismaha ciidamo guud waxaana la diyaariyay askar dhalinyaro u badan kuwaas oo waxbartay lana doonayo in dalka dibadiisa loo qaado si loo gaaro ujeedada ugu weyn ee la xiriira in la gaaro hadafkaasi oo ah in la soo saaro kheyraadka dabiiciga ee ku jira dhanka Soomaaliya wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordha baahinteena tan xigta ee warbaahinta Xuraansiga ku daaw